موضوعاني aan doortan waxa uu ahaa haweenka ku nool barakacayaasha magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan kuwaas oo markii hore ka soo barakacay abaaraha ka jira dalka Muqdishona soo maceen biday kadibna ay ku saameeyeen daadadka iyo maxay ahayd roobka da ay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaynu ognahay in inta badan qoysaska Soomaaliyeed ay ku tirsan yihiin hooyooyinka oo ay dhabarka u xirtaan sidii ay qoyskooda markaas u dabri lahaayeen موضوعنا أنت سأقدرتي هواين بدن أيا شقلعنا مركي أتكتو بركعة هواين بدن أيا دبعتيسن هواين بدن أو أنت بدن كل شقيسين جري حوج وذا جارهان القصة أيا مدوين كي دم وكجوك سدي تعصو صوبتي إن دتكي عائلة جان قادن عسري عصب سيدا قسالة ده أو ركل وركضه يوحي على ميدا يقوسسكي وقاركود جبر مركز وشقيس كان سنة أما أكال ميسا that's why dhibaatooyinka markaasi ka jira barakaca inkastoo la og yahay qof markuu barakac yahay in dhibaato ay haysato haddana mawduucaas sidaas oo ku doorto waan ku faraxsanahay inaan kamid ahay gabdhaha kaalmaha hore ku soo baxay isla markaana ka qayb qaatay barnaamijkan soo gudbiyay sheekooyinka waan u mahadcelinayaa tiimka Soojara oo inta badan isku howla horumarka haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa saxafiyiinta ah ku shaqeeya mihnada warbaahinta waxaan ku leenahay hore u soco ha ka caajisin in aad gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan ku warbaahinta ku jira sidan oo kale aad u garab istaagto aad soo bandhigto in kuwa hal abuur kale sheekooyinka sameyn kara